waa Bermudia ogaansho iyo saanka xogaha YouTuberadani waxay helaan daawasho badan muuqaalka si soo gudbiyaan YouTube-kooda waxaana helaan kumanaan lacag ah ay ku maareynayaan noloshooda haddaad doonayso inaad samayso muuqaalada ay sameeyaan oo kale waxaa dhici karta inaad ku fikirtay mowduucaas maalinuun laakiin ma garanaysid meesha aad ka bilaabi lahayd research-ka ama ma garanaysid pointiyada saxda ah ee loo baahan yahay iyo habka ugu fiican ee macluumaadka looga baadho mareegta Google iyo sida loo qoro qoraal ku dhisan macluumaadka aad soo heshay dhammaan su'aalahan waxaan kaaga jawaabi doonaa muuqaalkeenan fadlan nala joogi laaya dhamaadka waxaan kuugu sheegi doonaa muuqaalkan sida aad ku heli lahayd pointiyada muhiimka ah adigoo adeegsanaya dariiqa Kiplin sida loo raadiyo jawaabaha iyo sida aad ku xaqiijin lahayd masaadirta aad ka helaysa macluumaadka iyo sida aad ugu xeel dheeraan lahayd macluumaadka aad baadhayso iyo agabka ugu fiican ee la adeegsado marka aad wax baadhayso iyagoo free ah iyo sida ay u qoran YouTuberada aad ku xiran tahay script-gooda okay bal han bilowno intaananu bilaabin haddaad doonayso inaad barato video editing-ka una edit garayso sida Somali Editor oo kale adigoo adeegsanaya moobilkaaga oo kaliya waxaan kuu diyaarinay course video editing fadlan waxaan qaadan doonaa arday kooban intayna ka buuxsamin numberka description-ka yaala iska soo diiwaangeli okay balan soo noqonna mowduuceena haddaad ku haysato fikrad cajiib ah maskaxdaada oo doonaysa inaad ka samayso muuqaal fikradda waqtiga waxaad waajibi doontaa laba mowqif inaad haysato pointiyo badan oo ku saabsan mowduucaas kadibna aad ku wareersan tahay mowduuca muhiimka ah ee dooran lahayd ama inay maskaxdaadu maran tahay oo aanad wax fikrad ah ka haysan meesha aad ka bilaabi lahayd haddaad ku sugan tahay labada mowqif hore u soo sheegnay waxaad awood u leedahay inaad adeegsato dariiqa Kiplin si aad u hesho pointiyada muhiimka ah ee ku saabsan mowduucaaga dariiqada Kiplin waa farsamo fudud oo wax ku ool ah oo waxtar u leh ururinta macluumaadka mowduuc kasta waxa kaloo loo yaqaanaa 5W and 1H method sababtoo ah waxa la adeegsanayaa 5W iyo 1H oo kala ah who, what, when, where, why iyo how waxaan ku siin doonaa tusaale saad ila fahantaa dariiqada Kiplin ka soo qaad inaan samaynayno muuqaal ku saabsan internetka madow haddaba waxaan ku tabiqi doonaa farsamada Kiplin mowduucaas aan u helno pointiyadiisa muhiimka ah su'aasha ugu horeysa waxay noqon doontaa what ama maxay waa maxay dhab ahaantii internetka madoobi waxaad sharixi doontaa waxa uu yahay internetka madoobi iyo waxa uu kaga duwan yahay internetka caadiga ah iyo muuqaalada laga helo internetka madow kadibna waxaad ku xujisiin doontaa su'aasha ah when ama goorma ayuu soo ifbaxay internetka madoobi marka waxaad ka warami doontaa taariikhda uu soo ifbaxay internetkaasi kadibna waxaad ku xujisiin doontaa where ama xagee ayaa laga isticmaalaa internetka madow xagee ayaa inta badan laga adeegsadaa internetka madow waxaad ka warami doontaa meelaha laga adeegsado iyo meelaha lagu sameeyay adigoo su'aal kasta ku sii talax tagi doona kadibna waxaad ku xujisiin doontaa who ama kuma ayaa maamula internetka madow kuma ayaa isticmaala internetka madow iyo waa kuma dhibanayaasha internetka madoobi waxaad ka warami doontaa dhammaan dadka maamula internetka madow si dadban ha u maamulaan ama si cad ha u maamulaan iyo dadka dhibanayaasha u ah internetkaasi kadibna waxaad ku xujisiin doontaa why ama sabab muu u jiraa internetka madoobi waxaad ka warami doontaa hadafka laga lahaa samaynta internetka madow iyo hababkii loo sameeyay ugu dambeyn waxaad ku xujisiin doontaa how ama sidee buu u shaqeeyaa internetka madoobi kadibna waxaad ka warami doontaa habka uu u shaqeeyo internetka madow waxaa lagu tiriyaa farsamada Kiplin mid faa'iido badan leh marka aad wax baadhayso sababtoo ah waxay koobsanaysaa su'aal kasta oo ka iman karta mowduuca aad baadhayso dhammaan YouTuberada aad daawato way isticmaalaan farsamadan warka ay wax baadhayaan sida loo raadiyo jawaabaha iyo si aad ku xaqiijin lahayd masaadirta aad macluumaadka ka helayso marka ugu horeysa waxaan raadin doonaa jawaabaha su'aalahan hore u soo tirinay sidaa daraadeed waxaan adeegsan doonaa baaritaan degdeg ah oo nu adeegsan doono Google-ha waxaana heli doontaa maqaalo iyo faallooyin ku saabsan waxa aad raadinayso waxaad ka heli doontaa maqaalo ku anfacaya website-ka Wikipedia ama inaad akhrido buugaag ku saabsan mowduuca aad ka hadlayso ama inaad daawato muuqaal ku saabsan mowduuca aad ka hadlayso si aad wax badan uga fahanto run ahaantii waxyaabaha hore u soo sheegnay oo dhan waxaa ku qabanaya ChatGPT
halka uu ku siin doono jawaabaha aad raadinayso, laakiin kuguma talinayo inaad isticmaasho ChatGPT sababtoo ah markasta oo maqaalo iyo faallooyin akhrido waxa ziyaadaysa aqoontaada, waxaana samayn doontaa baaritaano xeel dheer sababtoo ah waxa siyaada aqoontaadii. haddaad rabtid inaad isticmaasho maskaxda macmalka ah waxaad adeegsan doontaa website-kan waxa uu ku fiican yahay research-ka, waxaana uu ku siin doonaa masaadirta uu ka keenay xogaha. markaad akhridid iska fiir website-ka in lagu kalsoonaan karo iyo in kale, iyo qofka qoray in lagu kalsoonaan karo iyo in kale. haddaad ka hesho jawaabaha aad raadinayso website-yada kale ah Quora and Reddit, waxa hubaal ah inaan lagu kalsoonaan karin macluumaadka ay bixiyaan. inaad xaqiijiso ilo xogeedyada waa arrin daruuri ah, gaar ahaan markaad ka hadlayso arrimaha ku tacalluqa caafimaadka, dawooyinka, dhaqaalaha, siyaasadda iyo macluumaadka doodu ka taagan tahay. waxaa jira agabyo badan oo adeegsan karto research-ka, waxaana ka mid ah Google Scholar. waxa uu ku fiican yahay inaad si dhaqso ah uga hesho maqaalo la xiriira waxbarashada iyo maqaalo kala duwan. sida oo kale waxaa jira website-kan waxaad ka baari kartaa su'aalaha scientific-ka. haddaad doonayso inaad ka hadasho mawduucyada ku saabsan cilmiga, laazim waa inaad adeegsataa website-kan sidaad ugu xeel dheeraan lahayd macluumaadka aad soo baadhay. haddaad rabto inuu muuqaalkaagu noqdo mid ku qani ah macluumaad badan, waa inaad samaysaa baaritaan xeel dheer. marka aad doonayso inaad samayso baaritaan xeel dheer waxaad adeegsan doontaa horizontal and vertical logic. waa maxay horizontal and vertical logic? ka soo qaad inaan ka samaynayno muuqaal mawduuca ku saabsan sigaarka. marka waxay naga hortimiday su'aasha ah maxay dadku sigaarka u cabaan? jawaabtu waxay noqon kartaa dareemida ciriiri, stress iyo xayeysiis in loo sameeyo si aana uu ku cabo. jawaabaha aan bixinay waxaa loo yaqaanaa horizontal sababtoo ah jawaabuhu waxay noqdeen kuwo jiif u tax ah oo sidaas ay jawaabu u soconayaan. haddaan ka hadalno dhinaca verticalka, tusaale ahaan maxay dadku sigaarka u cabaan? jawaabtu waxay noqon doontaa dareemida ciriiri. waxaa ka soo bixi doonta jawaabta su'aal kale oo ah maxaa sababa ciriiriga. markaa su'aasha kalena waad ka jawaabi doontaa waxay noqon doontaa jawaabtaasina mushkilad ka haysata dhinaca bulshada ama dhinaca qoyska. sidaas ayaa loo baaraa marka aad doonayso inaad ku xeel dheeraato macluumaadka. waa in jawaab kastood bixiso su'aal kale ka sii dhalato si ay markaa macluumaadkaasi si fiican loo fahmo. intaa waxaa inoogu soo dhammaaday habka wax loo baadho. hadda waxaan isla geli doonaa habka ay u qoreen youtuberada aad daawato scriptigooda. marka aad macluumaadkii aad soo baadhay waxaa qasab ah inaad qorto script soo jiidasho leh. tallaabada ugu horeysa ee qaadayso si aad script u qorto waa inaad qortaa hordhac soo jiidasho leh ama intro. tusaale ahaan markaad daawanayso muuqaalada ogaansho, marka ugu horeysa waxa uu kuu sheegayaa mushkilad adiga ku haysata, kadibna mushkiladaas waxa uu ku xalinayaa muuqaalka intiisa dambe. waa Beri Media waxa uu kaaga sheekayn doonaa qiso, kadibna su'aalo la yaab leh ayuu kaa weydiin doonaa, jawaabahana waxaad ka heli doontaa muuqaalka dhexdiisa. sidaas ayaad samayn doontaa haddaad ka hadlayso mawduucyada ay ka hadlayaan youtuberada hore u soo sheegnay. su'aalo la yaab leh ayaad ku bilaabi doontaa, kadibna jawaabahooda waxaad ku dhex siin doontaa muuqaalka dhexdiisa. main contact ama qaybta dhexe scriptiga waxaad kaga jawaabi doontaa su'aalaha aan ku soo baadhnay dariiqii 5W and 1H method, laakiin inta badan waxaad kaga fogaan doontaa su'aalaha la wada yaqaano. haddaad u baahan tahay sida loo qoro script oo faahfaahsan, waxaad daawan kartaa muuqaalka dhinaca kaaga muuqda. waxaan soo gaarnay guntiga gabagabadii muuqaalkeena. fadlan hanaga ilaawan like iyo subscribe. commentigana waxaad noogu soo qortaa wax nagu dhiirigelinaya inaan sii wadno. sidaa iyo salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.